السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخياتها وذا نقدر قصري waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii kobci garaadkaaga oo aan halkan idinka soo gudbino caawo kala khamiisa. barnaamijka dhageystayaal waxaanu ku soo qaadan doonaa World Cup-ka oo markaasi aan rajaynayno in axadda markaasi la soo gabagabeeyo iyadoo ay isugu yimaadeen labada kooxood ee kala Faransiiska iyo Argentina. ayaanu ku eegi doonaa sidii shalay toole aanu dabcan uga warrami doonaa, balse marka hore aan ku horeysiiyo warbixinada markaasi aan jecel lahay inaan idin soo gudbiyo. waxaa dabcan ka mid ah maadaama finalka ay isugu soo biyo shubatay laba wadan oo keliya in markaasi waxa weeye ay ka qayb qaataan ayaa waxay markaasi ay isu marinayeen kabtanada markaasi labada kooxood kala hogaamiya waa dhanka Argentina Messi iyo dabcan difaaca garabka bidix xulka qaranka Faransiiska oo leeyahay Thio Hanan ayaa isagu markaasi fariin adag markaasi u diraya kabtankaasi xulka qaranka Argentina. waan soo qaadan doonaa iyo markaasi waxa weeye Messi oo sheegay in ay noqon doonto lugtiisii ugu dambeysay oo taariikh markaasi dhigi doono, isagoo markaasi cadeeyay inuu kooxdiisa uu qaadi doono koobka. runtii koobkani waa koobka markaasi ugu caansan ama waxa weeye qofka ciyaartooyga la ciyaartooy ma tahay oo markaasi waxa weeye rekoorka uu dhigo oo marka uu u qaado wadankiisa koobka sidii laacibkii adduunka Diego Maradona oo isagoo laba jeer u qaaday. taasoo rabaa inuu xaqiijiyo, balse aan dabcan aan ku horeysiiyo muxuu yidhi markaasi ninka la yidhaahdo Thio Hanan oo isagoo fariin u diraya Messi ka hor finalka koobka adduunka oo hadda la rajeynayo soo socota markaasi inuu dhaco. wuxuu yidhi difaacaasi xulka qaranka Faransiiska Thio oo markaasi fariin adag u diraya Messi ayaa waxa uu yidhi ka hor inta aysan markaasi anaanis weejeen aysan iska hor imaan labada kooxood waa xulka finalka koobka adduunka iyo waxa weeye 2022 labada wadan. wuxuu leeyahay ninkan odayga oo difaaca qaranka waxa weeye Faransiiska ah waxa uu leeyahay guul qaali ah ayaan ka gaaray marka loo eego wadankii Morocco xalay tolo la ciyaaray kadib markii ay markaasi aanu ka adkaanay buu yidhi aanu ka adkaanay 2-0 si fiican uga adkaanay buu yidhi kadib markii ciyaartu wax yar socotay ba aanu waxa weeye rigoore helay samarhaantana shabaqaan ku hubsanay. taas waxay keentay rajo weyn oo markaasi aan ku sii soconno inaan markaasi guul ka gaaro. Morocco aad waxa weeye magarasa ii sheeg loo hadalhayay soo baxsanaysa buu yidhi markaasi kama cabsanayno markaa leeyahay maadaama Morocco oo aad loo saadaalinayay aanu marinay magarasa wada cad inaan wajahno Lionel Messi iyo waliba xulka Argentina maadaama ay yihiin buu yidhi koox xooggan, laakiin sidoo kale waxaan haysanaa buu yidhi koox tayo leh. waa ninka Faransiiska waana wax cajiib ah in markaasi la ciyaaro laba final oo koobka adduunka oo xiriir markaasi waa cajiib buu yidhi inaanu qaadno. waxaan soo bandhigi doonaa buu weliba leeyahay wax walba oo aan markaasi ka guuleysan karno dalkaasi Argentina. wuxuuna carabka ku adkeeyey in xulka Faransiiska uu soo bandhigi doono wax walba oo markaasi awoodda kulanka markaasi ay ugu dambeysa si uu mar labaad oo xiriir ah u qaado buu yidhi koobka adduunka. marka waxaad moodaa fariintaas inuu u farayay Lionel Messi oo isagoo ah waxa weeye kabtan rajeynaya in markaasi waxa weeye uu koobka u qaado kooxdiisa. waayahay haddii aan kusii soconno daawadayaal ama dhegeystayaal halyeyga xulka qaranka Argentina iyo kooxda Paris Saint-Germain Lionel Messi ayaa sheegay in kulanka axadda ee finalka koobka adduunka ee 2022 uu noqon doono kiisii ugu dambeeyay ee koobka adduunka, kaasi oo markaasi waxa weeye uu muujinaysa in aanu ciyaari karin kulano kale.
وهذا maxay tahay sababtu xulka qaranka Argentina ayaa u soo baxay finalka koobka adduunka 2022 kaasoo hadda ka socda wadanka Qatar kadib markii ay 3-0 ay ku garaaceen xulka Croatia oo noogeen wacdaraha ay dhigtay Brazil ay la hartay ayaa waxa weeye aynu markaas isagana waxa weeye aynu ognahay haddaba sida ay rajaynayno waan ku faalinaa buu inaan awooday inaan markaasi ku soo gabagabeeyo safarkayga koobka adduunka kulankan ayaa uu sheegay markaasi finalka buu leeyahay wala hubaal buu in hadda ay noqon doonto kulankayga ugu dambeeyay ee koobka adduunka uma malaynayo buu in aan markaasi mar kale awoodi doono inaan sameeyo markan wixii ka dambeeya waxaan rajaynayaa buu leeyahay ugu dambeystii in sheekada ay ku dhamaato sida ugu wanaagsan وهاجاج وينو طبعا سوقتنا حلكاسي وحوي أرجنتين فرانسيسكو وحوي طبعا رجدوا أي سيد هذا هذه الشيء جاي تهاي إن أحد ينسوقتنا و بربك كبح ذا وبكيل قلين عيان لنا هاي مركنا وحنشعل هاي إن طبعا عن قيبيه كله يسوق بيو بل ما دام فعل كل ما هذا كنت كيس إنه جدا بي سيدا مركز لو كله جولستي محمد حاجة يا قيبتن وحوي إنه سو وحوي جد بنا يه حاجة ساسر طبعا عن سكول أفينا